السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku rajeynayaa caafimaad baan ku rajeynayaa adiga ehelkaagaba insha allah. ilaahay caafimaadka noo wada daayo, ilaahay intiid naga bugtana ha caafiyo, ilaahayna ha nagu gargaaro xanuunkan ideelkeenba insha allah. maanta waxaan doonayaa intaan kula wadaago arrin ku saabsan xanuunkan covid-19. nigama sheekeynaya xanuunkan wuxuu yahay waxay ku dhan waa iskala socotiin, laakiin waxaan igala hadli doonaa saddex tusaalaan soo qaadan doonaa wadana qaarkood sidayba xanuunkan ugula dhaqmeen, kuwiiba ku guulaystay, kuwii ku guuldaraystay iyo kuwiiba la xarbinaya. saddexdaa tusaalood baan soo qaadan doonaa, waan ka sheekaysan doonaa, waxaan aad iyo aadna gunta isdul saari doonaa waddanka wadannada adduunka aan ugu jecel lahay waa Jabuuti. waan isdul saari doonaa, kula sheekaysan doonaa insha allah dhammaadka. haddii tusaalaha ugu horreeya soo qaato, waxaan ka hadlaynaa horta Faransiiska. waxaan uga hadlaynaa Faransiiska li'aana dad badan baa moodaa aan reer Jabuutiya ka Faransiisku maanta intuu wadannada adduunka ugu horumaray uu yahay oo aad iyo aad meel kasta ugu sareeya, inkastoo maaragta wadana ka horeeyay ay jiraan maaragta meel kastaba haddii la eego isagoo keligii wahayn tusaalaha loo qaato. laakiin anaka yaraanteen ilaa maayo weynaashada ilaa maayo waqtiga la joogo waxay nagu barbaariyeen Faransiiska ku barbaarno. markii kastaba Faransiiska la soconaa wuxuu yahay waxyaabaha ku dhaca iyo siduu yahay. haddii aan Faransiiska dul saarno, Faransiisku siduu xanuunkan u maareeyay haddii aan ka wada hadalno, marka ugu horeysa horta Faransiisku xanuunkan aad iyo aad buu dheersado, haba yaraatee sidii looga baahnaa waxba uguma hortagin. muusi waxayna baraarujiyay dadka, muusi baraarujin sidii loogu baahnaa markuu yimidayna intii itaalkiisu la xarbiyey. laakiin waxaa la arkayaa waqtiga la joogo intuu ku guuldaraysanayo sidii loo maareyn lahaa arrinta. markuu xanuunkan uu bilaamay, uu Shiinaha ka bilaamay, waxaad arkaysay ama aniga yarba u taagnaa meeshaan deganaa Marseille, waxaan arkayay dad ka imanaya bahalkii airportka ka soo degaya, haba yaraatee sidii loogu baahnaa maaragta wax loola qabanayba oo la eegeen inta xanuunka leeyihiin kale, intay dhibaato leeyihiin, intay ma aragtaa iska sii daayay. markaa dadkii badnaa Shiina badan, dad Faransiiska degnaa oo Shiina ka yimideen, meeshay ha noqoto meesha xanuunka ka bilaamay iyo meel kale oo Shiinaha ay yimideen Faransiiska, dadkaayo haba yaraatee waxba laga eegeyn. markay iska tegeen Faransiiska dadkiina dee ku kala noqdeen xaafadoodii ka yimiday Shiinaha. markaa waxaad arkaysaa kii haba yaraatee Faransiisku intuu waxayn airportka dee wixii looga baahnaayo dadkii anaaniiskii ha noqdo, dadkii fuxsaadkii loogu waxayn lahaa, sidii loo kala shaandhayn lahaa dadkii ka soo degayay dadkii kale. wuxuu is yiri anigu waxba bahalkii weli waxba bahalkii nama sheegin, marka waxa ma xirayno ilaa maa iyo dhawaan dad badan région de Grand Est laga helay maaragta xanuunkaayo aad iyo aad badan meesha ugu batay. markaa baa la yiri hay markaa uu soo kacay Faransiisku baraarugu is yiri meesha ha laga wal xiro, meel kastaba ha la xiro, waxba dhaqaaqin dhulka ku dhan waxba maaragta macala warqadaha la qorqoraya sidii loo baxo. waxaad warqad baa soo imprimaysanaysaa, waa qoraysaa, waxaas leedahay waan baxaya. dadkiiba loo diiday maaragta siduu baxo. qof kastaba waa intuu sheego wuxuu ku baxay, waxyaabo daruuriyaadkan baa ku baxaysa, ha noqoto cuntadaada, ha noqoto iska soo daweynaysid, ama ha noqoto qof u gargaaraysid oo buka, iyo waxyaaba sidaayo aad iyo aad daruuriyaadka. waxaana waa caddaynaysaa, waa qoraysaa, markaabaad baxaysa, haddii kale ma baxaysid. marka waa ka fikiraysa intaan bixin laba jeer. talabaaday taale waxa weeyaan Faransiisku maanta waqtigan la joogo amba haddii aan is orano dhowrka bilood soo socda sidee wax uga hortagaya. run ahaan haddii la sheego waqtigan konfinimadu dad badan baa dhibaatayaal badan soo gaadhay. iminka waqtigan la joogo waxaan daawanayay warka oo sheegaya nacam dadkii dee baahida gaarka lahaa xaafadooda dhex fadhiyay dhibaatayaal badan baa soo dusfaartay. markaa dee sidii wax loola qaban lahaa waa loo eegaya. marka dadkan la xirayo amba konfinimoga generaalka la waxaynayo haba yaraatay dhaqaalaha waddanka uma fiicno, waxyaabo badan u fiicnayna way jirtaa. laakiin waxaa la isleeyahay ama loo malaynayaa intay tahay xalka keliyaate aan haysadno aan kaga hortagi karayna xanuunkan covid-19. waxaan bas intaan carabkeyga ka bixin waxaan oran lahaa Faransiiska aan dhammayn. Faransiisku dhowrka bilood soo socda muu ka bixi doonaa amba sidee bay dadku u malaysaa. maanta run ahaan haddii la sheego waqtigan la joogo, dad badanna waxay leeyihiin bahalkii ku takhasusay bahalkii xanuunkan iyo amba siyaabihii loo maareyn lahaa. waxaas ka dhici karaysaa bil 2 bilood ilaa 6 bilood intuu konfinimogu Faransiisku kaga jiro. inkastoo maaragta konfinimogu uu si yar dabci doono, laakiin konfinimogu iska joogi doono 6 biloodna waa wax badan weeyaan. 6 bilood oo wax badan weeyaan. haddii istiraadiin ka soo 6 bilood baan dad xirxiraya, dhaqaali waddankana aad buu taabanayaa, dad badanna maskaxdoodii aad buu taabanayaa. bixitaankii badan baa iskaga baahan yahay, sheekay dadku iskaga baahan yihiin, dadku waxay la sheekaystaan iskaga baahan yihiin, suqtu dadka da'da ah, dadka baahida gaarka leh iyo dadka waxba haysanba. marka waxaa ku dhan markii la eego haddii uu bahalku sii raago dhibaatayaal badan baan iibanayso
imanaysa iska badda xanuunkan intuu yimanba dhibaatayal badan ma imanaysa noqonaysa dhibaatayal maskaxaaneed dhibaatayal caafimadeed baa soo bixi karaya macala marka waqtigu waxa iska caddahay amba loo maleeyaa amba probability badan ay tahay intuu xanuunkan bilaha soo socdo sida confinement ugu sii dheeraan doono ilaa 6 bilood amba haddii kaba yaraataba inkastoo maanta ay adag tahay si loo sheegi lahaa qiyaasaan loo oran lahaa waqtigan ka baxayna waxaan dul taagayna haddana waddan labaad waan dul taagaynaa qibladeeni Faransiiska waan ka soo jeesanaynaa waxaan jeesanaynaa dheerta waan jeesanaynaa waddan aad aan ugu helo ah Korea Koonfureed amba la Korea Sud waxa waxaysay waxyaabo badan sida xanuunyada nooga hortagto waxay isticmaashay horta waxay teknolojiyada leedahay isticmaashay maanta teknolojiyadu amba aaladahan cusub iyo sidii loo adeegsan lahaa waxyaabo badan bay maanta nolosha ku tari karayaan amba waxbay ku qaban karayaan amba haddii ay ka faa'iideysid waxbay ku qabanayaan haddii kalena haddii ay ka faa'iideysan weydo horumarkii dadka gaareen ma gaaraysid marka waddankan iyadoo isticmaalaysa aaladaha ay dadku leedahay iyadoo macla dadkayga soo baraarujisay dadkooda soo dhistay maskaxaaneed dadkooda soo dhistay kastaba ka soo dhistay oo dad fiican ka wala dhigtay markay labada isku heshay dad fiican iyo aalado iyo teknoloji aad u sareeya waxa isku dayday sida Faransiisku intuu fikirayeen ama waddan qaarkood u fikirayaan history sidee ugu hortay karaysa iyadoo markaad eegtid Korea Koonfureed meesha ku taalo Shiinaha aad ugu dhow laakiin iyadoo sidaa waxa history waxaan si kala fikir jadiid la imanaya لأن adduunka maanta waxa muhiim ah qofba sidaa waxay maanta noloshaada waddan kastaba waa intuu markuu waxaynayo ku waxayo sidii isaga ugu habboon maanta Djibouti hadii qaraar qaadanayso intay qaraar u qaadato ma Faransiiska sidaa waxay ama Faransiiska markuu waxayaba alis iraado waraa Faransiiska san waxay anaguna waxayna maaha waddan kastaba wuxuu leeyahay maanta khayraad buu leeyahay dad buu leeyahay dabacad iska leh maanta Djibouti dabacad ay leeyihiin iyo dabacada Faransiiska isku mid maaha dabacada Djibouti leeyihiin dabacada Indiyartan isku mid maaha mid kastaba si baa loola dhaqmaa maanta marka waxa muhiim ah waddan kastaba hadduu fahmo sida ugu habboon ugu hortii karay dhibaato kastaba waa ugu muhiimsan weeyaan ku dabaday markii kastaba dad marka Korea waxay istiri anu maanta waxaan fikir jadiid la imanay maxaa waxaynaya wixii aalad ayaan isticmaalaya aalad sidii uu isticmaashay haddaan tusaale soo qaadato maanta qof baa xanuunkii baa haya iska yar dareemay dhakhtarku tagay waa loo sheegay xanuunkii waa ku haya okay xanuunkii baa haya qofka muxuu waxaynaya horta isagu marka ugu horeysa marka xaafadu iska tagay haddii xaafada kama soo baxayo isaga marka qofka is confineynayaba qofna ma controlin haba yaraatee maskaxdiisa bil'aadnimadiisa iyo ilaahayda cilmiga ma aragta dawladdu ay siisay ee wax ay bartay fikirkiisa ayaad u saamaxaynba intuu dadka dhex galo dadka si ma aragta xanuunka si gaarsiyo marka isaga mas'uuliyad qaadanay iska tagay xaafadiisa isxiraya marka uu isxiro dawladdu maxay waxaanaysaa wax muhiim ah aad u fikir fiican oo waxay isticmaalaysaa aaladda maanta ka soo qaad telefoonada wala haysanaa waxa telefoonkaaga ku soo dhacay ka soo qaad message kule baalkii qofka baad u dhaweyd 1 mitir in ka yar ka soo qaad oo xanuunka leh marka isu soo eeg bay kale qofkii kale dadkii ku dhamay oo la sheegaysa dadkii ku dhamay markay u sheegtana u dhawaa iyadoo isticmaalaysa maaragta baalkii connectionkan meel ku isku connectay internetkiisa hagu soo maray dadka u dhawaa ayay sida ugu habboon ugu sheegaysa dadkii si u dhawaa saga laga yaabo inta xanuunka ku dhaco marka dadkana ay iyakuna soo baxayaan is eegayaan hadii leeyihiin way sixirayaan iyagu hadii kalena oo shaqadooda iska wadaan marka waxaad arkaysaa Korea Koonfureed amba la Corée du Sud waxay adeegsatay vraiment la technologie maanta ce qui lui a permis d'être parmi vraiment le pays qui ont bien géré cette situation maanta Allemagne wadana badan waxay ku dabadaynayaan baalkii waddanka Korea Koonfureed Djibouti kalena waddankan adduunkan ugu jecel yahay maanta Djibouti markaad eegtid sidee baad u malaysaa Djibouti waqtigan intay ku nooshahay kulliba Djibouti dadka jooga way ogyihiin dadka Djibouti ka maqanna markii kasta way la socdaanoo qalbigoogu hagaabu ku maqan yahay Djibouti markaad eegtid waan la garanaynaa Djibouti maanta waxaan garanaynaa awoodda Djibouti leedahay waan garanaynayo ha noqoto dhinaca dhakhtareed waan iska wal garanaynaa intaan dhakhtarkeenu farax lagu wala tarin karayo 5 afrood ay dhaafeen dhakhtarada ugu fiican Djibouti dadka wax daweeyana waan la soconaayo ku takhasusay cilmigan ma aragtaa intii aad iyakuna u tira kooban yihiin waxay ku dhan aan kula soconaa waa u malaynaysaa Djibouti hadduu xanuunkan ku sii kordho intay ku horti karayso ilaahay kama dhige waa su'aal aad u adagoo taa waxyaabo badan bay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay dadaalka kow dawladdu ay la imanayso sidii dadkooga ugu gargaari lahayd ha noqoto dawladdu waxba ka hargan weydaba dadkooga oo markii dadku wax u baahnaadaanba markii kasta
wax siinayso boqolkiiba boqol itaalkayga dul dhigaysa iyo dadka shicibko noqda dad mas-uul ah oo haba yaraatay maaragta markii haddii dhibaatayaal iska arkaan ay waxayna wixii loo baahnaa ee haba yaraatay dadka waxa way faafinay ay bahalkii ay ilaalinayaan maaragta waxyaabaha ay dowladdu u sheegayso talabaad ay taale badanka dadku ka wada hadlaan ama maanta laga wada hadlayo ay run ah wax la iska khabeeyay ahayn waxa weeyaan waa dhibaatada maaragta maanta Djibouti haddii la sheego runta dadku aad iyo aad bay u liitaan oo dad badan baa liito oo haysan waxyaabo ay cunaan maanta kama oran karaysid hooyadii suuqa wax ku iibinaysay iska fadhiyo ha soo bixin yaana maanta waxay quudinaysay dadka quuto daruuriga waxay soo helaysay isla maalinta maaha dad bishaaro qaata dad waxa jira bishaaro qaato alxamdulillah bishi kasta wax soo dhacda way fiican maanta waa dadka baalkii fahmi mooyaanka Djibouti weeyaan laakiin dad badan oo kaliitana way jiraan oo maalintii kastaba quuto daruuriga la dagaaltamaya ilaahayna insha Allah dadka uga gaaro inkastoo maaragta markaan daawanayay maanta saaka waxaan maqlayay Djibouti oo dad badan leeyahay maaragta wax badan baa loo qabtay inkastoo aanu aaminsan yahay maaragta dad badan oo inkuna kamidteen aaminsantiin dadka ay ku dhan sidii wax loo gaarsiiyay aad u adag tahay lianna maanta tirokoob ma haysan runahan haddii la sheego tirokoob dadka maanta qof kastoo faqiira ama noloshiisu ka hooseyso maalkii mooyeenka oo loo oran karo qofka Axmed haga uu degan yahay wuxuu helaa bishii 500 maalintii uu helaa 500 aad iyo aad buu liitaa noloshiisu 3 ciyaal ama 4 ciyaal buu leeyahay amba ku furan buu helaa dadka oo la wal garanayo iska adag tirkoobka horta uma malaynay intuu jiro maaragta tirkoobka uma haduu jiro maanta dhibaato ka soo timid xanuun ma aha markuu haduu dagaal dhaco amba hadii waxyaabo kala dhacaan oo loo gargaari lahaa dadka sida ugu degdeg badan tirkoobka laakiin uma malaynay hadii aan haysano way fiican tahay maaragta laakiin tirkoobka hadii la waxayn la wuxuu tiri la waxyaabaha ay ku dhano waa la ogaan lahaa qof kastaba meeshu ka buka la ogaan lahaa waxa la ogaan lahaa qof kastaba dayarta dadka dhibaataysan maaragta ee maanta ay ku dooneen haba yaraatay intay faqiirin amba lacag la'aan ay ku dhacdo ee caruurtoodu aad iyo aad u dadaalayaan ee inaka yara dhalinyarta uu dadaalayo sidoo hooyadii aabihii uu quuto daruuriga maalinta uu keen lahaa amba hooyadii aabihii si fiican u dadaalayaan marka iyagu haba yaraatay mid doonan laakiin taasoo ah maanta nasiib daro waxay ku nool yihiin waqti xun inkastoo dawladdu isku dayaysa ma aragtaa sidii itaalkeyga say dadka wax u gaarsiiso laakiin waxaan wala aaminsanahay dadka ku dhan intay gaarayna dad qaarkoodun u gaarayso ay dad badan ka maqnaan doonaan nasiib daro maanta waa taa weeyaan ugu horeysa taala waa taa talbaad aad ugu hadlayaan waxa weeyaan dhibaato kale jirto dadku isku leeyihiin maanta Faransiiska marka la yiri dadku iska wala fariistaan xaafadooda waxay haystaan waxyaabo badan maanta qofka Faransiiska kama maqno haba yaraatay wax inta lacag fiican buu iska qaataa hadduu qaadana dawladda lacag soo shubta iska garanaya supermarket uu dhow yahay cunto iska soo daldalanaya intuu doono maanta ku dhan iska goranaya iska cunaya waxay haystaan cunto fiican maxay haystaan macala waxa u yaala qof kastaba daruuriyaadkii dhakhtarku isku daweyn lahaa hadduu kaniinka madaxa xanuunka hayo iska haystaan qof kastaba xaafadiisa waxa u taala kiish ba u yaala laakiin nasiib daro Djibouti kiishaska ma yaalino maanta hadduu qofku madax xanuun ku dhaco amba hadduu garaac kale oo dhibaataynaya uu aad u xanuun ku dhaco ma haysto wuxuu iska daweyn lahaa haddii la yiraahdo talabaadna xanuunkii wixii laga maarmaanka ma ahe wax kale lama daweynayo maxay ka dhigantay laga maarmaanka waxay ka dhigantay u malayaan Djibouti sidaan ugu fahmay qof dhibanaya ma wax qabanaynayo aan daweynaynayo qof kale habeeraad wax lama daweynay marka waxa arkaysa dhakhtar badan oo Djibouti dad badan oo markii imideen isu soo daweynayay markay arkeen dhakhtarku imideen kiiradeen hooyo ee ka tiri maaragtay balbalan ka soo lugeeyay ilaa waxaan imidey dhakhtarkan waxaa garaac badan ma iska dareemayaa aad iyo aad baan dhibaataysan dawe ee dadkii daweyn lahaa ugu jawaabaan maaragta haba yaraatay ma tihido qof daruuriya amba qof irshoon ma tihido marka kuma daweyn karayno hooye iskaga noqo balbalog marka waxyaabaha ku la maqashid qalbigaaga aad iyo aad buu ku dhaawacay waxa leedahay qofka sidaalim horta ma bil aadan ba qofka amarka soo bixiyayna isaguna ma bil aadan ba fat situation dadku isku leeyna maanta situation dadka Faransiiska sida Djibouti uu baalki ugu ma appliquer karaysid directement waxaad u baahan tahay esprit d'analyse boo baantay qof kasta oo inta istiraadid sidee baad ma aragtaa qof kastaba u maareyn karaysaa wuxuu ugu habboonaasin karaysaa leena maanta hooyada balbal ka soo lugaysay ma haysato waxay kan ku iibsato ay qaraaca sida iskaga baabin lahayd ma haysato farmasiye ee u doonato wax dhakhtarkii kaliya daweyn lahaa maanta saa ka yiraahdo
كورونا أو إيمان بقى أما كورونا كوفيد 19 كود دلين بدتك ماركتا دت قار كود وحكود منيان وحيابها يو مركي للدوين واي ماركتا قفكا دويستا يو ما ماركتا هذا هدي دتك ما تلسكير سو دويو ورجلمون غير ريسبكت قف كسب امتر اسكو جيرو قف كسب وحبتا واي ماركتا ودتك لو فرميلو oo si aan aadi loo joogso dhibaato ma leh maaragta oo taa wax daruuriya laakiin ha soo wala bixina hayna isdaweynina dawaaxan u maleeyaan dad badan baa ku dhimanay maaragta intii bahalka xanuunka soo gaarin ba marka sidii taalka qof kasta maaragta ha noqoto dad wax daweeya maanta wallahi aniga irba maaranta hadii aan halna qof wax daweeya maskaxdaydu ama bil aadnimadaydu ma siiseen intaan qof hooye ah aan ka yiraahdo iska noqo kuma daweyn karayo waa wax maaragta bil aadnimada ku dhaawacaysa qof buka marka ka tiraad iska noqo waxa maaragta wallahi aad loo leeyahay marka noqtaa si maaragta si faahfaahineen waxaan leeyahay Djibouti intii talkiga way wada dawladda Djibouti way wada laakiin wax haba yaraatay maaha tii maaragta dadku ay ka wala sugayeen dadku wax badan bay maanta ka sugayaan dawladda waxaan dhageysanayay maaragta videogan bilaabin duubitaankiisa video ku soo durtay walaasheen Shukri Jibril ilaahay ka jazaarsi hawshay wado aad baa markii ka soo duceeya gabadha waxay soo dhigtay maaragta video soo share gareysay wadan qaarkood Slovenia baan malaya bahalkii wadan ku yiri yaala bahalkii America Latin ku yaala malaya hadii khaldameen madaxweynihiiyo maaragta wadanka aad tusaale u siinayo dadkii kale wax kastaba ana maanta haggayga weeyaan waxba ka walwalina biyo haggayga koraanku haggayga bishaaradu haggayga wax kasta u baahantiin haggayga diina soo qaadateen haggayga nacam dadkii wadanka marka ku nooshay waxa isleedahay wadan baa ku jirta maaragtaayo meel ba ka soo jeeday waa u dagaaltami karaysa wadanka inkastoo maaragtay maanta Djibouti qof kastoo dhalinyaro maanta wadankiisa u yahay diyaar wax kastoo looga baahan inuu qabto laakiin waxa arkaysa madaxweynaha marka ay wadanka Shukri walaashin noo soo shar gareysay waxa arkaysa isagoo waxyaabo badan soo sheegay waxa ay ku dhan anaga ha qabanayna ha ka walwalina daana kuna dawladeena intaan ba ka sugeynaa iyo wax ka badan ma insha Allah hadii inta laga helana alxamdulillah hadii kalena waxaan kulli waan iska wal garanayna maaragta waxaan muhiima qof kastoo Djibouti ka kala sidoo gargaar laaba ka muhiimsan maaragta dawladdu waxyaabaha ay qabanayso hadii qabataba insha Allah hadii kalena qof kastaba ka kala soo gargaaray gacmo minata wala noqon insha Allah qof kastaba hadii maanta lacag haysto ka kala uu gargaaro isagoo ma aragta dad kale siisiineen dad kale la hubin ba lacagtan meesha geeyeen mar kale adigu hadii lacag leedahay u geey dadka garanaysid maanta kaama dheer ma aragta bilbila oo tagsidun oo soo eegtid xaafadaha jingadaha ay waxba haysan waska arkaysa gaarigaaga qaado raashin u geey ma dhibaatada hadii ay karisid bawiyaan ma aragta لأن ما تدرس كل من ما ضد حاجة مركل لعبته وجيس المركل مرنا إلهي نوجيه إلهي نقدر ندافع لكن مدحوينها قبلها ولا شيء شو سو شارك ليس هذا المهم يريو وحير ما تدرسك لعبت على صو أرنية مال الجينية كي تابتا أنا جا عنت هذا كحير مركل هذا الكأدي يد بيتابتو ما تدرسك كل هذه السنة ولا حاليا قف كستمات الدبات قف كلا وجيس أنا كون حير الهين بقى هنقض تركينا هنقض نين ملالكينا أما هنقض وحكله هذا قف كستم الدبات الجيستو عرون لين وأنا كدبات وجيس دتك قفتا والله وحياة بدن بني حاجة الله marka insha Allah intaan ku soo gabagabeynaya waxaan ku leeyahay insha Allah Ilaahay caafimaadka noo rajeeyo caafimaadka noo ziyaadiyo Ilaahay ha naga dhigo wadan horumar gaaray wallahi maanta dhalinyarta Djibouti meel kasta ku nool yahay Yurub Mareykanka Shiinaha Djibouti dhexdiisa dadku haraad waxay qabaan horumar bay u qabaan Djibouti markay arkaan wadan kasta horumar buu gaaray yakiin wax isleeyihiin ana kuna goorto horumarku noo yimaanaya horumar ziyaada sidii baa wadannada qaarkood Afrikada ama wadannada qaarkood Yurub aan u dhaafleyn baan isku weydiinayna insha Allah dhalinyarteena وملقاري دونا إن شاء الله إلهينا نفض ذيو مركي كستب دينتا عن تلصارنا إلهينا مركي كستب هنكدقنا ماركتا كيني نقولوا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وكليه هاي وحكور جنيا عفمات هذه يدتك كوجود ولا الكيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته